laba diyaaradood oo ay leedahay Djibouti ayaa xilligan aan kula hadlayo waxay ku jiraan meel aan ka fogeyn hawada magaalada Hargeysa. maamulka Somaliland wuxuu sheegay inay ka warqabaan diyaaradahaasi oo ay dawladda Djibouti dacwad ka gudbin doonaan. waxaan ku soo gudbin doonaa micnaha ka dambeeya iyo siyaasadda ka dambaysa in Djibouti ay ku baashaasho hawada Somaliland. sidoo kale qodobada kale aan kula wadaagi doono waxaa qayb ka noqon doona heegankii ugu sarreeyay ayaa la geliyay ciidanka beesha Ciise ee ku sugan aaga magaalada Boorama iyada oo Boorama laga cabsi qaba in la weeraro. faahfaahinta ayaan kula wadaagi doonaa. sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay Cabdiqaadir Firdhiyo oo isku shaandhayn ku sameyn doona xubnaha talisada ciidanka militariga iyo kuwa jiidaha ku sugan ee waqooyi bari. qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada. haddii tahay markii kuugu horreysay ku soo bir waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentiga inoogu reeba. qodobkeena ugu horreeya ayaan ku bilaabayaa laba diyaaradood oo ay leedahay Djibouti ayaa in ka badan 5 saacadood oo xiriira waxa ay ku jiraan meel aan ka fogeyn hawada magaalada Hargeysa ee Somaliland. Somaliland oo goordhow ka hadashay waxay tilmaamtay in Djibouti ay dacwad ka gudbin doonaan. labada diyaaradood mid waa helicopter midna waa diyaaradda la yiraahdo JF-17 oo Pakistan ay dhawaan siisay dawladda dalka Djibouti. sargaal sare oo ka tirsan ciidamada cirka dawladda Djibouti ayaa wuxuu sheegay in diyaaradahan ay si caadi hawada Somaliland mar walba u soo gali jireen iyaga oo ogolaansho ka haysta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. dabcan tan oo ka dhigan in Djibouti aysan ba aqoonsanayn Somaliland wax dawlad la yiraahdana aysan u aqoonsanayn markay rabana hawada ay soo gali doonaan markay rabaana ay ka bixi doonaan. Somaliland sargaal u hadlay gaar ahaan waaxda duulista wuxuu sheegay in Cabdiraxmaan Cirro uu telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle laakiin telefoonka uu ka qaban waayay. tan oo dabcan ku tusinaysa in Djibouti ay ka xumaatay wixii ay Israel iyo Somaliland ku kala sixideen heshiis lagu tilmaamay kaasi oo dabcan dhigayay in labada dhinac ay is aqoonsadaan. Jamhuuriyadda Djibouti waxay sheegtay in hawada Somaliland iyo hawada maamulka waqooyi bari iyo hawada Jubbaland iyo midda koonfur galbeed ay la mid tahay hawada Soomaaliya meesha laga xukumana ay tahay magaalada Muqdisho. taas oo dabcan dharbaaxa ku ah marka xaqiiqda laga hadlo maamulka uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cirro. labadan diyaaradood waxay awood u leeyihiin inay basaasaan taliska guud ee ciidanka Somaliland ee gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Awdal, gobolka Maroodijeex, gobolka Salal iyo meel walba oo kamid ah ciidanka Somaliland ay joogaan. waxay awoodaan in ay soo ridaan diyaarad walba oo hawada Somaliland soo gasha. diyaaradda la yiraahdo JF-17 waa mid kamid ah jiilka ugu dambeeyay oo Pakistan ay farsamaysay. dalal dhowr ah oo Djibouti ay ugu horeyso ayaa dabcan laga iibiyay diyaaradan laakiin siday u isticmaalayso Jamhuuriyadda Djibouti waxaa la sheegay in aysan ahayn sidii ay kaga soo gadatay dawladda Pakistan. Cabdiraxmaan Cirro oo shir degdeg ah iskugu yeeray xubnaha waaxda saadaasha hawada ama waaxda duulista rayidka Somaliland ayaa waxay soo saari doonaan go'aan qaraar oo lagu dhaleecaynayo tallaabada ay qaaday Jamhuuriyadda Djibouti iyo in Djibouti ay si degdeg ah hawadeeda uga saarto hawada Somaliland uga saarto diyaaradahaasi. dabcan haddaad xasuusataan iyo haddii kala dhowr jeer oo kala duwan ayaan idiin sheegay in Jamhuuriyadda Djibouti ay diiday wax la yiraahdo aqoonsi la siiyo Somaliland. waxaad moodaa Jamhuuriyadda Djibouti inay ka shaqeynayso xariga iyo midnimada walaaltinimada. Djibouti sidoo kale waxaad moodaa in ay ka shaqeynayso sidii loo midoobi lahaa ama si toos loogu kala tagi lahaa. yacni in Somaliland iyo Soomaaliya ay heshiiyaan haddii la heshiin waayana si qurux badan loo kala dhaqaaqo. laakiin in Israel aqoonsi laga helo ama dal Carbeed laga helo ama dal Afrikaan laga helo Jamhuuriyadda Djibouti dabcan way ka soo horjeedaa horey bayna u qiratay dhowr jeerna way qiratay. hadda marka waxaa cusub ayaa ah diyaaradahan. hatta Djibouti waxay awood u leedahay markii aan runta isku sheegno in ay duqayso saldhigyada ciidanka Somaliland marka laga hadlayo yani dagaalka Ciisaha iyo Samaroonka. haddii maanta ciidanka Somaliland dagaalka ka socda gobolka Awdal ay toos u soo galaan warkayga si fiican u dhageysta. haddii ciidanka Somaliland dagaalka Ciisaha iyo Samaroonka ay toos u soo galaan oo Somaliland ay la safato Samaroon
jabuutina dagaalka toos bay usoo gelaysaa. jabuuti hadday soo gashana waxaa istaabanaya waa ciidanka somalilan iyo ciidanka jabuuti, kadibna waxaa imaanaysa duqeyntuna waxay ka dhacaysaa saldhigyada ciidanka somalilan. muhiimadda laguu sheegayaba waa intaas. marka waxaa la rabaa waxay tahay somalilan hadda siday ku socoto oo cabdiraxmaan ciro oo ku wado waddo khaldan buu ku wadaa, laakiin isagu wuxuu u maleeyaa waddadii saxda inuu ku socdo. waddada khaldan ee laalaabadka ah cabdiraxmaan ciro uu ku socdo in loo caqli celiyo waay. meeshii ugu fiicneed ee aqoonsi laga raadin lahaa carabta iyo afrikaanta iyo war aqoonsiga lagu sheegay somalilan wuxuu ku xiran yahay dowladda soomaaliya, iyagoo la heshiiyo dhaha ama aan kala dhaqaaqana ama aan heshiino, intaas baa ku filan. hadda waxaa soo kordhay waxay tahay wax u eg daandaansi oo jabuuti ay bilowday. somalilan iskama celin karto, jabuuti iskama celin karto. jabuuti iyo somalilan haddii maanta ay goota istaraan laba maalmood way badan tahay, hal maalin baa hargeysa la duqeeyaa ku filan, laakiin u malayn maayo taas inay dhacayso. marka hadda kulanka dabcan waan arki doonaa, kulanka hadda u socda xubnaha saadaasha hawada somalilan oo ku saabsan bal waxa laga yeeli doono daandaansiga ka imaanaya dhinaca jamhuuriyadda jabuuti. haddaad xasuusataan oo muuqaaladeena dib aad u baartaanna dhowr mar oo kala duwan baan idiin sheegay in ay jabuuti hawada somalilan soo gashay. weliba hawada meelaha ugu badan oo jabuuti ay soo gasho waxaa kowka midda hargeysa, midda berbera, midda gabiley iyo midda boorama. saylac mararka qaar bay iyana soo galaan. waxaan sidaa ku leeyahay waxay tahay dhammaan deegaanadaas waxay ku yaalaan xuduudda, waa meelo muhiima. waayahay markana qodobadeena kale ayaynu eegayna. waxaan fiirinayaa war deg dega oo hadda isoo gaaraya oo sheegaya in heegankii ugu sarreeyey markaasi ay galeen ciidanka beesha ciise. macluumaadka aan ka helayno xilligan furinta ayaa waxay tilmaamayaan in heegankii ugu sarreeyey ay galeen ciidanka beesha ciise. dabcan ugaas mustafa ayaa goordhawaqadka telefoonka kula hadlay inta badan saraakiisha hogaaminaysa ciidanka beesha ciise ee ku sugan aaga tuulada durdur, aaga tuulada heemaal, aaga tuulada jidhi iyo galmudoobe eriyada maalmihii dhaweed la qabsaday. wuxuuna ku amray in weerar weyn uu kusoo wajahan yahay oo ay feejignaadaan, is-ilaaliyaan, isxakameeyaan. dabcan taasi oo la sheegay in ciidanka iyo saraakiishuba ay qaateen. ciidanka iyo saraakiishu waxay sheegeen in ay ka warqabaan islamarkaana ay ka digtoon yihiin weerar walbo iyagoo kusoo wajahan, islamarkaana ay iska difaaci doonaan haddii weerar lagu soo qaado. laba sargaal oo ka tirsan ciidanka somalilan waxay sheegeen in xilligan somalilan aysan ku dhex milmeyn oo aysan dagaal ku qaadeen beesha ciise, beesha samaroonna ay dagaal ku qaadeen, laakiin ay ugu baaqayaan labada beeloodba in walaaltinimo iyo is-afgarad iyo tolnimo xaaladda lagu dhammeeyo. dabcan jabkii gaaray 4 maalmood ka hor ciidanka beesha samaroon, dagaaladii ka dhacay eriyada galmudoobe, eriyada jidhi, eriyada tuulada cabdiqaadir, eriyada dixda sheekh awaare, dhammaan waxaa la sheegay in samaroonku ay si weyn uga caroodeen. sababtoo wixii samaroonka gaaray wixii idinka laydiin sheegay iyo wax anugu aan helaya, wallahi waxaan aanu helayaa badan. jab xoogan oo ay siday uga soo kabtaan ay adkaanayso baa ku dhacay beeshii la oran jiray samaroon. samaroon waxay iyagu aaminsan yihiin in la shirqoolay, in maxay tahay dhibaato lagu sameeyey, in laga garaabo. waa sida iyagu aaminsan yihiin. sababta waxay leeyihiin samaroonku ciidanka ciisaha ee weerarka ka soo qaaday galmudoobe, jidhi, cabdiqaadir ee yimid dixda sheekh awaare, ciidanka somalilan bay soo dhex mareen. waa siday aaminsan yihiin. waxaa sidoo kale jirta aragti ah in shakhsiyaadka hogaaminaya ciidanka beesha samaroon, malaha saraakiishoodan ka hadlaya, ay duulaanka wax ka ogaayeen oo lacag ay si hoose u qaateen oo ciidankana ay saa ku jebiyeen. wararkaana wuu soo baxaya. marka heegankii ugu sarreeyey ayuu ugaas mustafa ku amray inay ciidankoodu galaan. waan arki doonaa iyadana. qodobkeena ugu dambeeyana cabdiqaadir firdhiye hogaamiyaha maamulka waqooyi bari ayaa lasoo warinayaa in uu xilalka ka qaadi doono inta badan saraakiisha furimaha. waa saraakiil howlgab noqotay oo aan xilligan dagaal qaadi karin sida ay tilmaamayaan ila wareedyo aan la hadalnay. xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in marba marka ka dambeysa laga cabsi qabo isku shaandhayntu inay sameyso xubno waaweyn oo mas-uuliyiin ah oo maamulka waqooyi bari ka tirsan. isku shaandhayntan xilligay dhacdo cidda saraakiisha xilalka loo dhibiyo kuwa laga qaado waa inuu wararkeena dambe
haddii tahay markii kugu horeysay kusoo biir waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan sharaf iyo karaamo